assalaamu calaykum. mid ka mid ah riwaayadiistaha fankaas ku xeesha dheer ee sida culimo iyo caamaba ay dadku fahmi karayaan wax u qora ee Adham Asharqaawi ama naanis hoosaadkiisa uu isu yaqaano Qis ibnu Saacida oo riwaayadaas magaceeda la yiraahdo Nabd ama Nabad ayaynu afkaarta ku soo aroorinayo qaarkood halkan iskula gorfaynaynaa. waxa uu leeyahay weligiiba dagaalka waan ka soo horjeeday ka ku adkaada iyo ka ku jawaaba way khasaarayaan hadba ka guusha gaadhana waa ka khasaaraha yar uu soo gaadho ama waa ka samirka badan ee u karaanka badan xamilida khasaaraha soo waajahay. dagaalku waa laba qof oo gacmaha iska qaniinaya oo la sugayo balkooda hor cabaada si aynu dagaalka ugu adkaysanana waa inuu khasaaraheenu yaraadaa qolada kalena aynu khasaare keena ka badan gaadhsiinaa. waxa uu leeyahay abwaanada gabdhaha jeclaaday ee ilaa dhimashadoodii u gabiyay iyaguna ma ay samaysan gabdhahaas ay u gabiyayaan gabdhahaasina abwaanadaas ma ay samaysan ee markii ay caashaqeen ayay abwaanadaasi doorteen inay gabayo ku waariyaan jiritaanka hablahaas. waxa uu leeyahay haddii adduunkan lagu maamuli lahaa garaadka ragga iyo qalbiga dumarka waxa uu inoo noqon lahaa jannadii uu inaseejiyey geedkii loo diiday aadan ee uu cunay oo haweenku alaaba waxa ay ku qancaan waxa yar ee ay haystaan ragguna mar walba dheeraad ayuunbay raadceeyaan oo doonaan inaanay raggu raalli ku ahayn intaas yar ee ay haystaan ee ay dheeraad iyo isbeddel doonaanna waa ta caalamkan ka dhigtay mid marba marka ka dambaysa sii horu mara waana sababta ay marba marka ka dambaysa aadamuhu horumarka iyo ilbaxnimada u soo kordhinayaan. haddii aynu ku qanci lahayn dhulka qallalan doomo iyo diyaarado midna ma aynaan samaysaneen. haddii aynu fardaha iyo awrta ku qanci lahayn baabuur iyo tareenno midna ma aynaan samaysaneen. haddii aynu ku raalli noqon lahayn dadka aynu jecel lahay markay wax gaadhaan in innaga oole ilaahay u sahlay naftu ka baxdo caafimaadka waxba kama aynaan ikhtiraacneen ee mugdigaas ayaynu ku jiri lahayn. laakiin qanaaco darradaas wanaagga inoo hagtay intaas in leeg haddana xumaanta ayay dhankeeda inoo hagtay kuma aynaan raalli noqon seefihii iyo warmihii ee waxaynu ikhtiraacannay gantaaro iyo hub culus waxaana aynu ku duminaa wax kasta oo aynu cimrigeenni oo dhanba ku soo qaadannay sidii aynu u dhisi lahayn. waxa uu leeyahay dagaalku waa dheesha ragga waxaana uu dagaalku ragga u yahay sida uu uurku dumarka u yahay halka ay dumarku agabka nolosha ee aadamaha ah ka soo saaraanna raggu agabka dhimashada iyo wadka ayay soo saaraan. waxa uu leeyahay marka la joogo dagaalka inka awoodda lagu ogaa uu aqbalo xabad joojinta iyo wadahadalku waxa ay muujinaysaa inaanu awooddii lagu tuhmayey lahayn. haddii ka taagta darraa uu sanka kaga talo ka awoodda badan inuu miiska la soo fadhiistana waxay muujinaysaa in taagdarradii uu ka soo baxay. waa xaalad iminka dabcan uu Maraykanku ku jiro. waxa uu leeyahay qaanuunka samada ka jira iyo ka aynu dhulka aadami ahaan ku soo biirinay way kala duwan yihiin. aragtida uu Darwin keenay ee maanta adduunka ka shaqaysa waa in ka rooni reerka u hadho inka xoogani uu noqdo sayidka halka qaanuunka ilaahiga ee dhanka samaduna uu yahay inka wanaagsan ee habboon uu dhaxlo arlada isaguna uu ummadda garwado. waxa uu leeyahay badanaa inta ay karbaashka iyo in cadow madaxa ka garaaca mideeyeen oo badanaa inta daalimka dulmigiisu uu dad walaaleeyay. waxa uu leeyahay waayihii hore nolosha waxa ay ahayd reerka u arrimisa geeriduna waxa inagu soo mari jirtay socoto ahaan ay sanadihii hal mar ina soo marto oo hal qof ay naga qaadato se imanka doorarkaasi way istooriyeen geerida ayaa noqotay reerka u arrimisa noloshuna ta socotada ah oo mar kasta oo uu gantaal soo dhaco ma isweydiino yaa dhintay ilaa dhimashadu waaba reerka u arrimisa ee waxaynu isweydiinaa yaa nool yaa hadhay yaa ka badbaaday ilaa nolosha ayaa noqotay socotadaasina dhaafaysa dabcan halkan waxa uu uga jeedaa xaalka Falastiin. waxa uu leeyahay markaad aragto goosha libaaxa oo la dheelaysa dhallaankeeda waxaad arkaysaa hooyo dareen naxariis iyo xanaano ka buuxaan xambaarsan. markaad aragto iyada oo deero yar eryinaysana waxaad arkaysaa noole cadaawe arxan daran oo aan naxariis loo aqoonin ah. haddii aad aragto qof weji wanaagsan dadka kula dhaqmayana ogow cadowgiisa hortiisa marka ay noqoto inuu wejikaas in badan ka qallafsan kula dhaqmayo. waxa uu leeyahay hadbal qodobkaas u fiirso marka ay siyaasiyiintu ku fashilmaan siyaasadda dalka inay sal u dhigaan oo waxqabad ay sameeyaan waxa ay hal abuuraan dagaallo masiibooyin dhanka dibadda ka imanayana way sameeyaan kii maamulkooda ku gadoodi lahaa iyo kii diidanaana waxay ku qasbanaadaan inay markaa hoggaankooda iyo dawladooda u wada hogtaan ilaa cidda qura ee dagaalkaas ka weecin karaysa ama masiibadaas dibadda kaga imanaysa ka waabin karaysa waa dawladooda waxa uu leeyahay haddii aad aragto hogaamiye kacdoon iyo gadood garwadan ka ahaa markii uu guulaystana isagoo xilka qabtay oo taliyey ogow in aanu ninkaasi u dagaalamayn dalkiisa iyo dadkiisa dartood ee uu u dagaalamayay inuu dhisto isagu maamuuskiisa shakhsiyadeed dadkiisa iyo dalkiisana uu galaaftay oo uu ku sii garab qaatay. waxa uu leeyahay
raggu waa laba nin uun, waa nin xukun iyo nin xarbi, waa nin dagaal iyo nin dowladeed. ninka gadoodka iyo kacdoonka qaybta ka soo ahaa ee sanado soo dagaalamayay haddii uu xilka qabto ilaa waa nin xarbiye, caqliyad askari ayuu wax ku hogaaminayaa. waana nin u bartay inaanu caqligiisa ku fekerin ee uu qorigiisa ku fekero wax walba inuu awood ku muquuniyo ayuu doonayaa. dowladduna dagaalka dabadii garaad aqooneed iyo qalbi jimcoon oo naxariis leh oo dadka isu soo dhoweeya ayay u baahan tahay. haddiiba ay dhacdo oo ninkii dagaalka sanadaha ku jiray uu nin dowladeed noqdana, dalkaasi ama halkaas kama dhaqaaqo ama burbur ayuu ku dambeeyaa. waxa uu leeyahay, waxa uu xusay aqoonyahankii islaamka ahaa ee Cali Cizzat Begovic, marka uu kacdoon dhaco ee uu dhammaado, tallaabada ugu habboon ee la qaadi karaya waa inkii kacdoonka waday ee dagaalamayay uu iska nasto oo hubka dhigo oo noloshiisa uu dabarto. kii aqoonta maamul lahaa ee dalkan hagi karayeyna uu hurdada ka soo tooso oo maamulka uu qabsado. laakiin ninka xarbiga ka soo baxay haddii uu xukunka qabsado, xaalku allow sahal ayuu ku dambaynayaa. waxa uu leeyahay, war habka ugu toolmoon ee dal lagu dhisi karaa ma aha awood ciidan iyo cudud ee waa ogaal iyo wacyi dadka xog ogaal laga dhigo. dadkana dagaalku wuu daashaday. dagaalkuna ma aha higsiga horumarineed ee loo socdo ee waa mid ka mid ah hilinada iyo dhabooyinka loo maro ee xalka lagu raadiyo. dagaalka wacyiguna waa dagaal dibicsan oo aan sidaas u sii hawl badnayn. laakiin haddii aad dagaalkaas ah inaad dadkaaga wax aqoon ka dhigto aad ku guuldarraysato, waxaa kaa soo gaadhaya khasaare aadan kala kulmaynin dagaalka dhabta ah. dagaalkan wacyiga iyo dadka laga dhigo in dadka laga dhigo kuwo ogaal lihi ma aha mid ay cid waliba geli karto ee waa dagaalka dadka indhergaradka iyo xog ogaalka ah ee wax aqoonka ahuun. waxa uu leeyahay, adduunku waxa uu ku dhisan yahay culimo iyo caamo. culimo ama aqoonyahan ummadda u fekera, garaadka u shiila, gorfayn iyo falanqayn sameeya, siyaasado qurxoon oo dalka iyo dadkuba ay ku dhismayaan dejiya, iyo caamo iyagu muruqooda iyo gacantooda ku shaqeeya, siyaasadaha ahlu taladoodu ay soo gooyeenna fuliya. labadaas haddii midkood uu meesha ka baxana, ummaddaasi ma hinqanayso. innagana maanta ka Soomaali ahaan labadaasba way inaga maqan yihiin. waxa uu leeyahay, waxaa isu keen galay in labadaas qolo ee culimada iyo caamada hadba uu midkood waayaheennan howlgab noqdo. mar ayuu Cali ibn Abi Talib u yimi nin khawaarijta ka mid ahi, markaasuu ku yidhi, caliyow, maxay Cumar iyo Abubakarna mar walba u guulaysan jireen, adiguna aadan uba guulaysanayn? markaasuu ugu jawaabay Cali, dee Abubakar iyo Cumar waxa ay u talinayeen oo hogaaminayeen rag aniga oo kale ah, aniguna waxaan u talinayaa oo hogaaminaya oo maamulaya dad adiga oo kale ah. waa kaafiye kala dheeri, yacni xilligii Abubakar iyo Cumar culimo iyo caamaba waa la isbarkanaa. iminkana baashiinii ayaa maqan ayuu ku yidhi. waxa uu leeyahay, marka ay tahay nabadda, ubadku waxa ay aasaan aabbayaashood. marka ay tahay colaadana, aabbayaasha ayaa aasay oo duuga ubadkooda. waxa uu leeyahay, sida ay badiba caqliyadda dadka muranka badan ee xaqiiqada nololeed istiidsiiya u fekeraan, waa in marka ay wax baadhayaan aanay baadhin xaqiiqada dhabta ah ee ay baadhaan hadba waxa ay aaminsan yihiin, waxa baacinaya ee taageeraya uun. waxa uu leeyahay, haddii ay dhacaan gafaf ka dhacay dhakhaatiirta, ma xidhayno cisbitaallada oo albaabada u laabi mayno ee waxaynu la xisaabtamaynaa dhakhtarrada gefkaas ku dhacay. yacni dhakhtarrada shakhsiyaadka ay gefkaas ku dhacay ayaynu xisaabinaynaa ee dhakhaatiirta xidhi mayno. sidaasi la mid ah markii ay baadariyada kiristanku diintii Nabi Ciise ku danaysteen, dadkii baadariyadii ma ay xisaabin ee kaniisadii ayay dembigii u xambaariyeen. waxa uu leeyahay, garaad badnaanta iyo waalida hal farqi oo yar ayaa u dhaxeeya, waana in waalidu ay tahay garaad badnaan aan la xakamayn uun. qofka cabqariga ah ama garaadka baxsanina waa ka yaqaana inuu hakiyo garaadka badnidiisaas ka hor inta aanu waalida ku dhicin. ka waalanina waa ka aan garaadkiisa caburin ee heegiisa u sii dayn, yacni waalidu waa garaad badnaan lagu yaro talax tegay uun. waxa uu leeyahay, weligaa soo heli maysad qof waala oo tuug ahaa, sirkhaan ahaa, saqajaan ahaa, sifooyinkaas xunxun ku sheeganaa. waxaa astaamahaas iskale dadka garaadka sheegtay ee isu yaqaanay inay xuskoodii qabaan. waxa uu leeyahay, haddii aanu nahay ragga, waxaanu dumarka ku wadnaa dulqaad xaddhaaf ah, heer ay tiri gabadhii reer Ingiriis ee qoraayadda ahayd ee Agatha Christie, ilaahay ayaan ugu mahadnaqayaa in aanu iga dhiginin si aanan ugu qasbanaan inaan gabadh guursado oo aan hal guri kula noolaado. yacni dabciyada haweenka iyo samirka ay raggu ku hayaan ayuunbuu qodobkaa ku muujinayaa, gabadhaasina ay muujinaysay. waxa uu soo qaadanayaa weedha Cali ibn Abi Talib ee ahayd, ha u rabaynina ubadkiinna sida ay aabbayaashiin idinka idin rabeeyeen, sababtuna waa inay ubadkiinnu dhasheen xilli aan idinka xilligiinnii ahayn. xogahan kooban waxaynu ka soo midhaysanay 130 bog oo keliya oo ka mida buuggaas, waxaana hadhsan 130 bog oo kale. idinka ayaanan idin daynayaa inaad raadsataan oo aad ka soo shiilataan.
nuxurka guud ee macaan ee uu buuggaasi xambaarsan yahay. Wassalaamu calaykum.